gabar aad u daayar ayaa dhiganaysay dugsiga hoose oo ay maclimad ka tahay haweeney aad u xanaaq badan. maalin kasta gabadhan yar aad bay ugu khaylisaa iyadoo diidan xijaabka ay wadato midaan yar. gabadha yar ayaa aad uga murugoota kolka ay maclimadu ku khayliso. dhammaan carruurta kale aad bay ugu qoslaan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa maclimada oo xanaaqsan waxaa soo gashay inantii yarayd ee Fariida ahayd, weliba iyada oo wadata khamarkii. maclimadii ayaa iyada oo aad u xanaaqsan ku tiri, soo kumaan dhihin mar dambe adiga oo khamaar wata ama madaxa ku daboolan yahay ha imaan. wayna canaanatay. dhammaan saaxiibadeeda fasalka ayaa ku wada qoslay. xiisadii markii ay dhammaatay, ardaydiina xaafadahooda u kala jalbeebteen, ayaa gabadhii yarayd hooyadeed waxa ay ku tiri, hooyo, maclimad Heblaayo maalin kasta way igu khaylisaa, waxa ayna diidan tahay xijaabka. ardayda oo dhan way igu wada qoslaan. hooyadii ayaa gabadheeda ugu jawaabtay, hooyo macan, ma allihii ku abuurtay ayaad raaligelinaysaa mase maclimadaada? hooyo iska sabar, isaga dulqaado maclimadaada. maalinkii xigay markii dugsigii la tegay ayaa maclimadii sida caadada ahayd waxa ay bilowday inay canaanato gabadhii yarayd. hal mar ayay istaagtay gabadhii, waxa ayna tiri, macalin, xijaabkan aan wato waxaa raalli ka ah Allah subxaana wa tacaala, inaan isaga ku raaligeliyo ayaana u wataa. marka allihiina abuurtay intaan caasiyo miyaan adiga ku adeecaa? maclimadii aamusnaan baa ka soo hartay iyo fakar, waxayna ku tiri, berri subax hooyada ha yimaado. subaxii xigay aroortii ayaa hooyadii imaaday, waxa ayna aragtay maclimadii oo xijaaban. waxayna ku dhahday hooyadii, gabadhaada yar ayaa si weyn oo saameyn leh ii waanisay. waxay tustay waxyaabo muddo badan aan waxbaranayay aan fahmi waayey. waad mahadsan tahay sida aad usoo tarbiyeysay yariistaada. nin oday ahaa ayaa soo galay farmashiye si uu u iibiyo daawooyin uu kula tacaalayo gabadhiisi yar ee xanuunsan. ninka odayga ah waxaa ka muuqata daruuf dhanka nolosha ah. shaqaalihii farmashiyaha ayuu u dhiibay raajitadii ay ku qornayd daawooyinka uu doonayay. markii loo qiimeeyey waxa ay noqotay mid uusan filaynin oo aad uga badan lacagta yar ee uu wato. waxa uu ka codsaday in loo soo celiyo warqadii uu isaga watay. shaqaalihii ayaa siiyey warqadii raajitada ee dawooyinka ay ku qornaayeen. haweeney wanaagsan oo iska lahayd farmashiyaha ayaa intaasi oo dhan waxa ay eegaysay sida ay wax u dhacayaan iyo murugada ka muuqata wejiga ninkan odayga ah. wiilkii shaqaalaha ahaa ayay hoos ula hadashay, una sheegtay inuu dawada siiyo ninka odayga ah isagoo oon dareemin. wiilkii shaqaalaha ahaa wuxuu u wacay ninkii dawada rabay isagoo u sheegay in maanta uu noqday macaamiilkii guulaystay, uuna nasiib u leeyahay lacag ka badan midda uu dawada ku doonayo. qayb ahaanna dawo uu ku qaadan karo, qaybta kalena kaash ama dawooyin kale. ninkii odayga ahaa aad buu u farxay, wuxuuna dhahay, ma doonayo wax ka saayidsan dawooyinka aan gabadhayda ku daaweynayo, taasoo ay la ilmeynayso xanuunka haya. allah ayaa mahad iska leh. kadib markii uu baxay ninkii odayga ahaa ayaa wiilkii farmashiyaha gadayay haweenaydii farmashiyaha lahayd waxa uu weydiiyey, tani waa markii shanaad oo aad dawo siiso dadka fuqarada ah, waa maxay sirta ku duugan arrintaas? haweenaydii ayaa dhoola caddaysay, waxa ayna ku tiri, tani waa waxa uu na faray rasuulkeenna nabadgelyo naxariis dushiisa ha ahaatee. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. midda labaad, aniga waxaan gudayaa wanaag uu ii sameeyey qof ka mid ah dadka fuqarada ah geeridii aabbahay kadib, xilligaa oo aan dhiganayay fasalka labaad ee jaamacadda. una tegay adeerkay oo ahaa nin taajir ah si uu ii caawiyo una sii wato waxbarashada qoyskaygana ay u helaan qutulyoon. adeerkay wuxuu ahaa mid aad bakhayl u ah, madaxiisa ayuu foraariyey, mana kala garan karayn inuu i caawinayo iyo in kale. waan isaga tegay. maalmo yar kadib waxa inoo yimid cunakariyihii adeerkay oo wada lacag badan, waxa uuna inoo sheegay in uu adeer u soo dhiibay lacagtan, bil walbana uu idiin soo dhiibi doono intaan oo kale ilaa iyo inta aad ka qalin jabinayso jaamacadda. wuxuu joogteeyey ninkii cunakariyaha ahaa inuu inoo keeno lacag muddo 4 sano ah ilaa aan ka qalinjabiyo. qalinjabinta kadib ayaan u tagay adeerkay si aan ugu mahad celiyo, aanna ugu celiyo wanaaggii uu muddada dheer inoo sameynayay. waxa uu ii eegay si la yaab leh, waxa uuna iigu jawaabay in aanan loo baahnayn arrintaasi. in yar kadib waxaan ogaaday in ninka maskiinka ah uu bil walba ina siin jiray qayb ka mid ah mushaarkiisa, halka qaybta kalena uu isaga iyo carruurtiisa ay quudan jireen. maalinkaa wixii ka dambeeyey waxaan alle ka baryay inuu waafajiyo in aan wanaag u sameeyo
qof kasta oo faqiir ah ee u baahan caawin si aan u gudo wanaaggii uu ii sameeyey. Alxamdulillaah, alla waa i waafajiyey arrintaasi. Wiilkii ayaa weydiiyey inay ninkii muddada dheer soo caawin jiray u abaalguday iyo in kale. Waxay ugu jawaabtay waxa uu ahaa nin casiis ah, arrintaasi oo dhan alle dartiis ayuu u sameeyey. Sidaa darteed anna waa in aan dadka masaakiinta ah ee baahan wixii aan awoodo ku caawiyo, sidii uu igaga farxiyeyna aan uga farxiyo. alladhiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiilillahi thumma laa يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. waagii aan caruur gabar baa waxay ninkeeda ka dalbatay inuu u qoro warqad ka turjumaysa sifooyinka xun ay leedahay si ay wax uga beddesho uguna jawaabto codsi gaar ah oo kaga yimid dallad ay dumarku ku midaysan yihiin oo aalaaba xog aruurin joogto ah ku samaysa arrimaha qoyska iyo nolosha la xiriirta oo ay gabadhu ka tirsanayd. ninkii gabadha qabay waxa uu qalin u qaatay warqad dheer si uu sharaxaad waafi ah uga bixiyo tilmaamaha xun ee xaaskiisa kula dhaqanto. waxa uuna yidhi, aniga waan jeclahay xaaskayga, mana ku arkin wax ceeb ah oo aan ka sheego. dabadeed intuu warqadii xidhay ayuu u dhiibay xaaskiisa. sidaas ayayna ku gaartay guddiga haweenka ee baaritaanka ugu jiray inay aruuriyaan macluumaad dhab ah oo ku saabsan dabeecadda qallafsan ee ay dumarku kula joogaan raggooda markii ay guursadaan. haddaba sida caadiga ah maalinkii xigay ayuu ninkii gurigii ku soo laabtay si uu daalkii shaqada iyo buuqii magaalada uga nasto. nasiib wanaag, maanta waa maalin ka duwan maalmihii hore. waxay indhihiisu qabteen xaaskiisii oo taagan meel albaabka dhinaciisa ah, gacanta ku hayso ubax qurux badan, islamarkaana la ilmeynaysa farxad saa'id ah oo wejigeeda laga dareemayo marka aad milicsato. waxaa ninkii lama filaan ku noqotay dhacdada ay xaaskiisa uga warrantay oo ah in ay ammaan ballaaran ka heshay dadweynaha maadaama ay ku guulaysatay fariintii uu ka gudbiyey, loona aqoonsaday inay tahay gabadha ugu wanaagsan oo ninkeeda sharafta. taasina ay tahay waxaa laga doonayo qoys kasta oo nolosha ku bahoobay. dhanka kale, ninkii oo u jawaab celinayo xaaskiisa ayaa waxa uu hadalkiisa ku bilaabay, waan awooday in aan caddeeyo xumaan badan oo aad daris la tahay, laakiin waxaan ogaaday in uusan xaalku ku jirin in aan ceebahaaga la wadaago cid naga baxsan. si kastaba, gabadhii waxaa dhalaalay qalbigeeda, waxayna wacad ku martay inay wanaajiso ninkeeda inta ka dhiman nolosheeda, iyada oo sabab uga dhigtay ficilka kudayashada mudan ee uu gacaliyaheedu ku kasbaday. guud ahaan, xigmadda ku jirta sheekadani waxay tahay in la qariyo ceebaha dadka haba ugu darnaadaane marka shakhsiyaad kale hortooda laga sheegayo, waayo qalad laguma saxo qalad, balse wanaagga oo qura ayaa toosin kara qofka, abuuri karo farxad iyo jacayl. waana midda keliya ee lagu hanan karo nolol macaan oo naxariis iyo ixtiraam ku dhisan. fadlan walaal, adigoo mahadsan sheer dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan. waa qalinkii Cabdiqani Gaaxane Bare Dufle. gabar waxbarata ayaa aabaheeda waxay ka codsatay lacag dhan $10, kadibna waxa uu aabihii u diray gabadhiisa 2 jibaar lacagta ay dalbatay. dabadeed waxay weydiisay aabaheed sababta uu ugu soo badiyey lacagta. waxa uu ugu jawaabay, waxaan diidayaa mid xun inuu baahidaada ka faa'iidaysto, ee aabe sharaftaada ilaali oo shilimaad hasiisan weligaa. waalidiinta qaar aad bay u aragti dheer yihiin. waxaa soo diyaariyey sheekadan xigmadda badan Cali Salaad. waxaa idiin soo gudbinayaa kanaalka Sheeko Run Ah. fadlan, adigoo mahadsan, sheer dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan. wiil injineer muslim ah ayaa ka shaqaynayay shirkad gawaarida lagu farsameeyo uu lahaa nin Yurubiyan ah. ninka Yurubiyanka ah waxa uu dhalay gabar aad u qurux badan oo ka caawinaysay maamulka shirkadiisa. sanado kadib, wiilkii ayaa aad u jeclaaday gabadhii quruxda badneed ee uu dhalay. milkiilaha shirkadda uu ka shaqaynayo wuxuu aad u doonayay inuu guursado. isfahan muddo dheer qaatay kadib ayay noqdeen lamaane isjecel. kadib, wiilkii ayaa arrintii ku wargeliyey aabihiis oo uu u sheegay inuu gabar jecel yahay, doonayana inuu guursado. aabihii ayaa aad uga carooday arrinta kale oo uu sheegay awgeed, oo ah in gabadha aysan muslim ahayn. ma gabar gaal ah ayaad guursanaysaa? ayuu aad ula khiiliyey aabihii.
wiilka gabadha aad ayuu u jecel yahay wuxuuna ku fikiray habka uu awoodo inuu u guursado. waxa uuna weydiiyey aabihiis macquul ahaanshaha haddii gabadha ay soo muslinto inuu ku waafaqayo oo uu raalli ka noqonayo. ugu dambeyn aabihii uu ku raacay arrinkii. wiilkii wuxuu aaday gabadhii si uu ugu sheego inuu rabo inuu guursado iyada. waxa uuna u bandhigay inay diinta suuban ee islaamka soo gasho, sidaa darteed inta aysan ku diidin in ay ka ogolaato inay ka qaadato 10 kitaab oo ka hadlaya diinta islaamka kuna qoran luuqadda ay taqaano ee Ingiriiska ah. gabadhu kuma diidi karin waayo waxa ay sidoo kale doonaysay inay isguursadaan. waxay ka codsatay inuu siiyo muddo 4 bilood ah oo ay ku soo akhriso kitaabta uu keenay, kadibna ay ku soo warceliso isaga. 4 bilood kadib waxa uu wiilkii arkay gabadhii oo xijaaban, aad ayuuna u farxay. waxuuna ogaaday in ay muujinayso xijaabka ay xiran tahay qaadashada diinta islaamka. laakiin arrinta la yaabka leh waxay tahay in ay gabadhu ku tiri waa xaqiiq inaan muslimay markii aan si buuxda ugu qancay in ay diinta islaamka tahay diinta xaqa ah oo na tusaysa ilaaha waaxidka ah iyo qur-aanka uu ku soo dejiyey nebi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. laakiin ma aqbali karo guurkaaga maxaa yeelay markii aan kitaabta akhrinayay kuma arkin sida qof muslim ah 4 bilood kadib. markaan bartay diinta oo aan salaada ogaaday ma arki jirin xilliyada salaada adigoo masaajidka aadayo sida shaqaalaha kale, balse waxaad ka dooran jirtay inaad aniga ila sheekaysato markii aan doonayno inaan caawino qof ka mid ah shirkadda oo arrin adag soo wajahda. ma ogolaan jirin inaad bixiso wax yar ee kaaga soo aada sida shaqaalaha wax u sadaqaysanayaan oo kale. xilliyada fasaxa kuma arki jirin adigoo wanaagga amraya xumaantana reebaya. xitaa ma arkin adigoo sheegaya sharaxaad aayad ama xadiis. ku darso markaad islaamka iisoo bandhigaysay kaama ahayn ilaah dartiis ee guurkayga ayaad rabtay. waxaan akhriyay xadiiska nebiga sallallahu alayhi wasallam uu dhahayo إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. haddii uu idiin yimaado qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa ay idin raali geliso u guuriya. adiga muslim ayaa tahay balse gebi ahaan islaamka waad ka fog tahay. wiilkii aad buu uga murugooday arrinta ku dhacday kadib markii ay gabadhii u sheegtay xaqiiqada naftiisa iyo dhaqankiisa aadka u liita. aad buu u ooyay wiilkii oo alle ayuu xilligaas wixii ka dambeeyay u toobad keenay wuuna hagaagay. kadib ayuuna ku soo laabtay gabadhii. waxa uu arkay iyada oo u dhoola cadaynaysa, waxayna ku tiri waxaad sabab u noqotay inaan ku qanco diinta wanaagga badan ee islaamka. markaad islaamka iigu yeertay anna waxaan kuugu yeeray ku dhaqanka diinta si ay diinta kuugu gargaarto oo aad mar kale iigu soo noqoto adigoo ah saadiqul amiin kana run sheegayo ku dhaqanka diinta islaamka. ugu dambeyn way isguursadeen waxayna noqdeen dad nolosha ku bahooba. walaal keliya ha noqon qof afka uun ka sheega inuu yahay ruux islaam ah ee isku day inaad noqoto qof ku dhaqma diinta suuban ee islaamka. fadlan walaal sheer dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan. mahadsanid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. bilowga nolosheeda guurka iyada iyo ninkeeda aad ayay isu dagaalayeen oo khilaaf ayaa ka dhexdhici jiray. mar walba oo ay isdagaalaan isagoo xanaaqsan ayuu guriga ka tegi jiray. wax yar kadib ayuu u soo hiloobi jiray wuuna u soo noqonayay. raaligelin qurux badan oo weliba cudurdaar wadata ayuu la imaanayay khilaafkii dhacay awgiis. in badan ayay sidaas ahaayeen oo inta uu xanaaqo kadibna u soo laabanayay isagoo ka cudur daaranaya wixii dhacay, raaligelina ka wada. waxay ku tiri mataqaanaa sababta aad igu soo noqoto oo aad ii raaligeliso mar kasta oo aan ismaan dhaafno? maya xaaskayga ayuu hadalkii ugu soo gaabiyey. waxay ku dhahday markaan isku dhacno oo aad iga carooto gurigana ka tagto ayaan istikfaar bilaabayay ilaa aad iiga soo noqoto, kamana suuleen ilaa aad iga raaligeliso. 10 sano kadib wuu geeriyooday ninkeedii ayada oo 30 jir ah, 4 carruurana leh, 2 wiil iyo 2 gabdhood. dunida ayaa u madoobaatay, aad ayay u ooyday ilaa ay u cabsato indhaheeda. mas-uuliyaddii ayaa u laba jibaarantay, mana hayso dakhli ku filan ayada iyo carruurteeda. wax yar uu waalidkeeda uga tagayna way isticmaaleen. ayadoo qolkeeda ku jirta ayay soo xasuusatay mucjisadii ay lahayd istikfaarta oo ninkeeda oo ka xanaaqay daqiiqad yar ugu soo celin jirtay. waxay sidoo kale soo xasuusatay xadiiskii nebiga sallallahu alayhi wasallam
qofkii badiyo dembi dhaaf dalabka ama istighfaarta, ilaahay ayaa dhibaato walba meel uga baxa u yeela, ciriiri walbana faraj qaraysan ugu bedela. Kadib ayay badisay istighfaarta, waxayna caruurteeda amartay istighfaarta 6 bilood ma soo marin ilaa ay u imaado mooye qorshe cusub oo ay hanti hor leh ku yeelanayaan. Waxay ka heleen lacag malaayiin ah. Wiilkeeda weyn wuxuu noqday arday xifdiyey qur-aanka oo idil, gurigooda wuu barwaaqoobay, noloshoodana way wanaagsanaatay. Ilaahay wuxuu hagaajiyey wiilasheeda iyo gabdhaheeda, iyaga iyo murug ilaah ayaa kala leexiyey. Waxay noqotay haweeneyda ugu wanaagsan deegaankeeda. Taas waxa gaarsiiyey waa istighfaarta. Qofkii ilmo la-aan hayso, qofkii guurdoon ah, qofkii arrin ku cakiran tahay, qofkii dunida u arka inuu ku ciriiriyooday. Xigmadda sheekadani oo dhan waa xasuuso inuu Alle la jirkaaga yahay, hana ka rajo dhigin istighfaarta iyo ducada Alle. Dhibaato ma jirto ilaa dembi ayaa keena, mana baxdo ilaa istighfaar maahe. Dhammaanteen aan Alle u toobadkeenno oo aan istighfaarta badino. Halka aad naga daawanayso walaal waa kanaalka Sheeko Run Ah. Fadlan walaal, adigoo mahadsan share dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan. Mahadsanid. Wuu geeriyooday aabihiis isagoo 3 jir ah. Waxaa soo barbaarisay hooyadiis. Waxay ahayd gabar aad u qurux badan, akhlaaq wanaagsan leh. Rag badan ayaa guur u soo bandhigtay, wayna ka diiday. Waxay ka dooratay barbaarinta iyo tarbiyeynta wiilkeeda. Wiilku wuu weynaaday oo dhalinyaro ayuu noqday. Hooyadiis mar walba waxay uga dardaarantaa salaada iyo u dhawaanshaha xagga Alle. Nasiib xumo ma dhageysan jirin waanada hooyadiis oo marnaba ma maqli jirin. Waxaa sababay waa isticmaalka internetka. Waqtigiisa inta badan internetka ayuu ku qaadan jiray. Maalin ayay hooyadiis u soo gashay qolka iyadoo xanaaqsan. Waxayna ku tiri, adiga maba idanaysid oo sidee tahay hooy, xitaa ima quurtid, internet leebisi ku tahay, xitaa waajibaadka Alle ma gudatid oo salaad ma dukatid. Isma dhibin. Wuxuu ugu jawaabay, goor dhow ayaan kuu soo gedi doonaa kombiyuutar si aad u isticmaasho oo noloshaada aad wax badan uga ogaato. Way aamustay hooyadii iyada oo murugaysan. Maalin maalmaha ka mid ah ayay qolka u soo gashay. Waxayna aragtay asigoo daawanaya aflaanta xunxun. Aad bay u naxday oo waxay ku tiri, waryaa waa maxay waxaan aad daawanayso? Alla ka baq, waxaan aad mar walba daawanayso waxaan ka baqayaa inaad ku dhimato adoo ku gadi jira. Maxaa yeelay qof walba wuxuu mar walba sameeyo ayuu ugu dambeyn ku dhintaa. Qofka wuxuu ku noolaado ayuu ugu dambeyn ku dhintaa. Hooyo, qaatumadaada aysan kaa xumaan. Wiilkii aad buu u qayliyay isagoo leh, hooyo, arrimahayga ha soo dhexgelin oo nolosheedii iida, dib dambana qolkayga ha u soo gelin. Hooyadii ayadoo ilmeynaysa ayay qolka ka soo baxday. Waxayna tiri, ilaahay u dambi dhaaf wiilkayga oo soo hanuuni. 2 maalin kadib arrin argagax leh ayaa dhacday. Kadib bay hooyadii wacday walaalkeed oo masaajid imaam ka ahaa. Walaal, soo degdeg oo guriga dhaqsi ku imow. Markuu imaaday walaalkeeda wuxuu arkay hooyadii oo suuxsan. Markay soo naaxday ayay tusisay qolka wiilkeeda. Waaba wiilkii oo qaawan oo kombiyuutar hor fadhiya, aflaantii xunxunna ay u daaran yihiin, laakiin meyd ah. Waxay tiri hooyadii, ma dukan jirin, mana soomi jirin, ee masiirkiisu intuu ku dambeyn doonaa aboowe. Walaalkeed aad buu u ooyay, mana awoodin inuu u jawaabo walaashiis. Sidaas ayuuna ku aasay. Kadib ayuu imaamkii naftiisa la hadlay oo uu ku yiri, qof walba wuxuu ku dhintaa maalinta qiyaamo, lagu soo saarayaa uunka oo idil hortiisa. Walaalayaal, aan u degdegno toobada oo aan waalidkeena u baari noqono. Maxaa yeelay caas waalideenku ma liibaano. Raalli ahaanshaha Rabbi waxaan ku heli karnaa annagoo amarkiisa qaadano, waalidkeena raalli naga yahay. Waan ka wada dhareegsanahay in jannadu ay hooyooyinkeena lugahooda dhexdooda taal. Walaal, sheer dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan. Mahadsanid. Facebook ayay ka baratay wiil ajnabi ah. Ugu horeyn, gabadhu aad bay ula dhacday quruxda wiilka oo way ka heshay. Isfahan muddo dheer qaatay kadib, arrintu waxay isku rogtay marxalad jacayl. Wiilku waxa uu sheegay inuu doonayo inay nolosha wadaagaan. Gabadhii ayaa ugu jawaabtay, aniga waxaan ahay gabar muslimad ah oo isma guursan karno. Maxaa yeelay adigu muslim ma tihid. Waxa uu sheegay inuu islaamayo ayada darteed, hagaagna ay arrintu ku dhammaan doonto. Kadib ayuu wiilkii u soo diray lacag dhan $1,500. Waxa uuna ku yiri, waxaan ahay ganacsade, waa inaad soo hubisaa nooca dhiigaaga, wadnahaaga, beerkaaga iyo weliba iskaan jirkaaga oo idil ah. Dibna waa inaad ii soo dirtaa natiijo
natiijada maadaama aan isguursanayno oo aan nolosha wadaagi doono. Gabadhii ayaa ugu jawaabtay hubinta dhiigga oo keliya ayaa ku filan. Waxa uu ugu jawaabay waxaan jeclahay inaan ogaado jirkaada quruxda badan ka hor inta aanan aqal gelin. Gabadhii ugu dambeyn way fulisay dalabkii uu ka codsaday wiilka sida indhala-aanta ah ay Facebook uga jeclaatay oo hantida tirada badan ee uu haysta ay waashay weliba quruxdu u dheertahay isaga. Mar kale ayuu u soo diray lacag dhan $10,000 si ay u bilowdo qabanqaabada guurkooda. Intaa kadib waxa uu u yimaaday reerka gabadha si aad u qurux badan ayaa xaflad soo dhaweyn loogu sameeyay. Kadib ayuu gabadhii ku yiri miyaadan dalxiis igu soo wareejinaynin magaaladiina? Hagaag nakeen gacaliya ayay ku tiri. Muddo saacadaha kadib gabadhii ayaa reerkooda kusoo noqon weysay. Reerkii ayaa aad u walwalay oo arrintii wargeliyay booliska. Maalmo kadib ayuu booliska soo wacay reerka oo uu ku yiri waxaan helnay meydka gabadhiina balse xubnaha ugu muhiimsan jirkeeda waa lagala baxay. Kadib ayay reerku ogaadeen in ninku ka ganacsado xubnaha bini'aadamka. Sheekadani waxay ka bilaabatay Facebook. Xilligan aynu noolnahay wax walba iyo sheeko walba waxaa suuro geliya aaladda internetka sida Facebook ama social media kale. Arrimaha ka socda waa dabargo'a ubadkeena. Isticmaalkiisa xun ayaa qariba dhalinyaradeenna. Haddeenaan hagaajin adeegsiga social media waan ku halaagsamaynaa. Fadlan walaal share dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan. Sidoo kale ha ilaawin inaad subscribe saarto gambaleelkana furato si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena isla marka aanu soo gelino. Waxaa jira guri hoos baqarro waaweyn ku leh korna ay ka deganaayeen qoysas badan. Waxaa ka mid ahaa qoys ka kooban hooyo 3 carruur leh iyo hooyadeed. Goor dambe xilli habeen ah oo ay hurdayeen dhammaan qoysaska degan dhismaha, hooyaduna ay canugeeda ugu yar ku haysatay faraqa meel aan u dheerayn. Waxaa jiifay labadeeda carruur ee kale iyo ayeeyadood. Ayeeyadu waxay ahayd qof aad u daaweyn weliba aan awoodin in ay socoto oo ah hooyada qoyska hooyadeeda. Waxa uu dab weyn ka kacay qaybta hoose ee dhismaha ay deganaayeen xilli uu aabaha qoyska shaqo ugu maqnaa banaanka. Si lama filaan ah ayay hooyadii ugu kacday qeylada dad badan oo banaanka ah. Markii ay dibadda fiirisay waxay aragtay dab weyn oo guriga qaybtiisa hoose ka kacay iyadoo kooxda dabdamiskuna ay ugu baaqayaan dadka guriga degan inay ka soo baxaan dhismaha guriga si aynan ugu baabi'in dabka. Waxa ay ku carartay labadeeda carruur waxa ayna amartay in ay koraan dhismaha meesha ugu sarreysa. Carruurtii durbaba waxay u carareen dabaqa sare ee guriga. Waxaa isku soo haray hooyadii, carruurteeda, ayeeyadood iyo cunugeedii yaraa oo ay naaska nuujinaysay. Weliba waqtigu waa mid aad cariiri u ah oo aanan u saamaxaynin inay labadooduba banaanka keento. Waxaa qasab ku noqotay inay doorato labadooda qofka ay macquulka tahay inay badbaadiso. Waxayna dooratay in ay hooyadeed noqoto ruuxa ay marka hore qaadayso maadaama aysan mar wada bixin karin. Waxay meeshii ugu soo tagtay cunugteedii yarayd iyadoo go'aansatay in ay hormariso hooyadeed maadaama aanan xaalka la ogaan karin halka uu ku dhammaanayo. Dabkuna uu aad holiciisa ugu sii faafayo qaybaha kala duwan ee qolalka uu ka kooban yahay dhismaha. Aad ayay u murugootay waxayna ku qasbanaatay inay la cararto hooyadeed iyadoo cunugteedii yareed ay ooynayso aadna u dareemayso kulaylka dabka. Waxa ay xambaartay hooyadeed waxa ayna la kortay dabaqa sare ee guriga iyadoo rajo ka qabta inay u soo laabato cunugteeda haddii ay u suurto gasho badbaadinta gabadheeda yar. Markii ay hooyadeed geysay dabaqii ugu sarreeyay waxa ay gadaal u fiirisay meesha ay uga soo tagtay cunugteedii yarayd. Holiciina uu yahay mid aad u sii batay suuragalna aysan u ahayn inay ku laabato. Aad ayay u hoysay inta dabka damintiisa ay ku mashquulsanaayeen kooxaha dabdamiska taasoo suurta gelisay in ugu dambeyn ay ku guuleystaan daminta dabka, taasoo farxad gelisay dhammaan dadkii deganaa dhismaha markii laga reebo hooyada oo la ooynaysa murugada iyo xanuunka cunugteeda yar dareemayso darteed. Markii waageed baryay nasiib wanaag waxa ay soo heleen kooxda dabdamiska cunugtii yareed oo nool oo ku dhex jirta dhismihii uu dabka burburiyay. Ilaah mahadiis. Hooyadii ayaa ka warheshay in gabadheedii oo nool la soo helay taasoo ku noqotay farxad lama filaan ah iyo la yaab. Hooyadii waxa ay dhaqsaba xawadka gelisay cunugteedii iyadoo Ilaah uga mahad celisay badbaadinta gabadheeda. Waxa ay dhammaan dadkii ka agdhowaa la ilmeeyeen farxad. Waxa uuna noqday ereygii ugu horreeyay ee afkooda ka soo baxa. Tani waa miraha baarinimada ay u samaysay hooyadeed ayagoo ay ilmadu da'ayso. Walaalayaal aan ku dadaalno baarinimada waalidka waayo ayada ayaa lagu gaaraa liibaan adduun iyo mid aakhiraba.
fadlan walaal sheer dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan. Sidoo kale ha iloobin inaad like saarto muuqaalka. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah. waxa uu soo bartay cilmiga dhakhtarnimada. aabihiis wuxuu geeriyooday isagoo yar. waxaa soo barbaarisay hooyadiis. aad ayay ugu soo dadaashay oo heer dhakhtarnimo ayay gaarsiisay. waxa ay hooyadiis u shaqayn jirtay ciidaha deriska iyadoo u nadiifinaysa guryaha una dhaqaysa dharka si ay u maarayso qutul maalmeedkooda iyo horumarinta wiilkeeda agoonka ah. waxa ay sidaasi soo waday ilaa uu wiilku ka weynaado kana soo baxay heerka sare ee jaamacadda ilaa markii dambe uu noqday dhakhtar buuxa. wiilka dhakhtarka ahi wuxuu ku jiraa xilliga dhalinyaronimadiisa. waxa uu bartay gabar aad u qurux badan ilaa ay ka noqdeen lamaano isjecel oo xiriir wadaag ah. ugu dambeynna waxay ku ballameen inay isguursadaan. maalin ayay iska soo raaceen isbitaalka si ay gabadha u soo barato hooyadiis maadaama ay noqon rabaan dad nolosha wadaagaya inta cimrigooda ka dhiman. gabadhii markii ay aragtay wiilkii dhakhtarka ahaa hooyadiis ayay aad u xanaaqday iyadoo muujinaysa liidid ay liidayso wiilka hooyadiis. waxay xilligaasi go'aansatay inay guriga ka tagto. waxayna ku tiri waxaan soo xasuustay ballan aan daqiiqad kadib lahaa, sidaa darteed waan sii baxaa ee iga raali noqda. bixitaanka degdega ah aad ayuu ula yaabay wiilka. waxa ay isugu yimaadeen isbitaalka maalinkii xigay. waxa uu weydiiyey sababta ay uga soo tagtay iyo waxa ku dhacay xilligii ay la kulantay hooyadiis oo ay u sugi weysay martiqaadkeeda. waxay ku tiri sababta aniga kuu sheegaya ee haddaad rabto inaan isguursano hal shuruud ayaa ka horreysa. waxaan rabaa inaad iga aqbasho aad guurkayga danaynayso. wiilkii isagoo yaaban ayuu ku yiri ii sheeg waa maxay shuruudda. waxay ku tiri maalinta guurkeenna uu dhacayo waxaan rabaa inaysan hooyada kasoo qaybgelin xafladda guurkeenna, waayo hooyada sanado badan ayay imaan jirtay gurigeenna. waxa ayna noo nadiifin jirtay guryaha iyo dharka. marka ma ogolaan karo qof sidaas ah inuu guurkayga kasoo qayb galo iyada oo matalaysa hooyada, waayo waxaan ka xishoonayaa dhammaan dadka deegaanka deganaa ay dharka u dhaqan jirtay in ay arkaan in ay hooyada tahay. wiilkii dhakhtarka ahaa aad ayuu ula yaabay talada gabadha. waxa uuna ku wareeray waxyaabaha ay sheegayso gacalsidiisa iyo sida uu waxyeeli lahaa. waxa uu u tegay mid ka mid ah macallimiinta waaweyn ee jaamacadda isagoo ay arrintiisu cakiran tahay si uu ugala tashto arrinta cusub ee qalbigiisa walaaca ku beertay. waxa uu u sheegay macallinkii jaamacadda sida ay wax u jireen. markii uu dhageystay wiilkii arrintiisa kadib ayuu ku yiri hadda bax ee hooyada gacmaheeda dhaq markaad xaafadda tagto iina imaw berri si aan talo kuu siiyo. wiilkii waxa uu yeelay hadalkii macallinkii jaamacadda wuxuuna hooyadiis ka dalbaday inuu gacmaha u dhaqo. isla markii uu arkay gacmaha hooyadiis indhihiisa waxaa soo buuxiyey ilimo. waxa uu aad uga murugooday sida ay u yaalaan gacmaha hooyadiis oo ay uga duwan yihiin sida kuwa dadka normaalka ah, taasoo sabab u ahayd dhibaatada kasoo gaartay kiimikadii ay ku nadiifinaysay muddo sanado ah dharka iyo guryaha dadka ay u shaqaynaysay. hooyadu waxay dareemi jirtay xanuun daran markii ay gacmaheedu biyaha gaaraan maadaama ay yihiin kuwa dildilacsan oo aanan xamili karin qoyaanka biyaha. ugu dambeyn markii uu dhammeeyey dhaqitaanka gacmaha hooyadiis ee uu ogaaday dhibaatada haysata ayuu soo xasuustay aayadihii qur-aanka ee ka hadlayay waalidka iyo axaadiistii birrul waalideynka. isla xilligaasi wuxuu wacay macallinkiisii jaamacadda wuxuuna uga mahad celiyey sida uu u xasuusiyey dhibaatada haysata hooyadiis iyo waanadiisa xigmadaysnayd. waxa uuna u sheegay inuusan qofna ku doorsanaynin dhibaatada hooyadiis usoo gaartay isaga dartiis, waayo markii hore waxa uu ka murugsanaa gabadhii uu jaceylka daranaya indhala-aanta ah uu qaaday iyo hooyadiis siduu u kala dooran lahaa. markii uu arkay dhibaatada ay ku reebtay korriinshihiisa iyo horumarkiisa gacmaha hooyadiis waxa uu go'aan ku gaaray inuusan dan ka yeelan qof allaale qofkii aan ku ixtiraamin hooyadiis. waxa uuna ilaah ka baryay inuu waafajiyo baarinimada hooyadiis. maalintii xigtay waxa uu wiilkii dhakhtarka ahaa la kulmay gabadhii ay isjeclaayeen oo jawaab ka sugaysa isaga. waxa uu ku yidhi waxaan ku faraxsanahay inay tahay hooyaday, cid aan ku doorsanayana dunida aysan saarnayn. waxa uu u sheegay in wax walba uu heystaa uu u hurayo hooyadiis. ugu dambeyn gabadhii waxa uu sheegay
sheegay inaysan isguursanayn maadaama aysan ku ixtiraamin isaga hooyadiis. Muddo kadib waxaa si lama filaan ah gurigiisa u yimid gabadhii ay isjeclaayeen iyo qoyskooda oo wada socda isagoo la fadhiya hooyadiis. Waxay qoyska uga mahadceliyeen wiilka hooyadiis dadaalkii ay ku bixisay wiilkeeda si ay uga soo saarto nin mustaqbal fiican leh, waxayna hooyadiisa ka dalbadeen inay gabadhooda u guuriyaan wiilkeeda. Ugu dambeyn sidaas ayay ku noqdeen lamaane nolosha ku midooba. Baarnimada waalidka khaasatan hooyaha kaga qiimo badnaato wax walba oo dunida saaran, waayo abaalkeeda maahan mid aad adigu gudi karto. Xitaa haddii ay kula noqoto inaad wax walba u samaysay, ka faa'iidayso hooyada oo ku dadaal xiriirkeeda iyo ka warqabkeeda. Fadlan walaal, haddii aadan ka mid ahayn bahda ku xiran kanaalka Sheeko Run ah, nagu soo biir. Hana iloobin inaad like saarto fiidiyowga haddii aad ka heshay, sidoo kale share dheh oo la wadaag asxaabtaada kale si ay u daawadaan. Mahadsan. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. waxay ahayd xilli galab ah, jawiga aad buu u deganaa. Aniga iyo xaaskayga aad baan u faraxsaneen oo waxaan ka sheekaysanaynay bilowgii nolosheena iyo xilligii aan ahayn lamaanaha wadaag ah. Xaaskaygu waxay ahayd mid aad u caro badan, balse cagsigeeda aad bay u qalbi furneed oo wanaageeda ma ahayn mid la soo koobi karay. Mar qura ayay farxaddii isu rogtay xanaaq oo marxalad aan wanaagsanayn ayaa si kadis ah noogu dhalatay markii xaaskayga dhagaheedu ay ku dhaceen wax ay aad uga carooto. Dagaal iyo isjiijid dheer kadib, kuleetiga shaatiga ayay iga qabatay waxayna iga dalbatay inaan siiyo warqadeeda furiinka. Tala farahay ka baxday, waxaan farta ka saaray warqad si xilligaasi ay iga fuuqdo. Waxaan aaday banaanka. Xoogaa kadib markii ay xaaskayga caradii ka degtay ayaan albaabka u soo garaacay. Way iga furtay markii ay aragtay anigii oo iridda taagan. Wax hadal ahay ma dhihin, lama hadlin oo qol aan ugu talagalnay martida ayaan dhexda ka xirtay. Isla xilligaasi waxay dib u soo garaacday qolkii aan ku jiray. Iridiisa waxa ayna igu tiri ma wada hadli karnaa fadlan, iyadoo taagan qolka banaankiisa. Way ii soo gashay, waxay igu tiri aad baan ugu degdegay in aan furiinka dalbado anoo og in aad si xad dhaaf ah ii jeceshahay ee haddana keen aan culimada ku wargeline. Waxaan ugu jawaabay marka hore fur warqadda oo akhri inta aanan culimada la wadaagin furiinkeena sida uu dhacay. Way kala furtay qoraalkayga, waxay u qornayd sidatan: anigoo ah hebel hebel, waxaan warqadan ku sheegayaa oon ku cadaynayaa anigoo maskaxdaydu taam tahay oo cidna i qasbin in aan rabo oon u baahanahay xaaskayga oo weliba aan aad u jeclahay. Siday ahaataba waxaan ku faraxsanahay la noolaashaha xaaskayga. Kadib iyadoo ilmeynaysa ayay laabtii gelisay. Waa la iskhilaafi karaa oo xitaa Soomaali hore ayaa ku mahmaaday nin iyo xaaskiis colna maaha heshiisna maaha. Ka digtoonaada khilaaf inuu sababo in gurigiina dumo. Qof aad markii hore la noolaashihiisa dooratay lagama yaabo inay sinaba naftaada ugu qanci weyso. Qofka isaga ceebaha uu leeyahay dadka kale way dhibi karaan, balse labada qof ee nolosha wadaagay iskuma dhibsan karaan dabeecad xun iyo dhaliilo yaryar. Ha u degdegin furiin inaad xal ka raadiso. Fadlan walaal, sheer dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan. Mahadsanid. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. wuxuu ahaa nin hantiilaah. Qoyskiisa waxa uu ka koobnaa hooyadiis, walaalihiis, xaaskiisa iyo carruurtiisa, balse hooyadiis lama nooleen isaga. Waxa uu sharaf iyo qadarin ku lahaa bulshadii uu la noolaa xilligaas, balse nasiib darro waxa uu ahaa mid aan ku fiicnayn xiriirka Alle, mana dukan jirin salaada uu Alle weyne ku waajib yeelay adoomadiisa. Dhismaha qasri weyn oo aad u qurux badan isagoo ku howlan waxa uu yimid nin sheekh ah oo ay qaraabo dhow yihiin, sidoo kale hantiilo maaha, balse aanan qadaynin oo nolol maalmeedkiisa heli kara. Soo dhaweyn iyo iswaraysi kadib, sheekhi waxa uu bilaabay
bilaabay inuu u dardaarmo salaada, wanaagga iyo in uu soo booqdo hooyadiis oo u hilow qabta mar uun inay aragto isaga. Sheekhii wacdi dheer kadib ayuu hadalkiisii kusoo gabagabeeyey jannada adduunka waa hooyo, mugdiga qabrigana waxaa ku iftiiminaya salaada ee nakeen hadda aan masaajidka kusoo dukanay. Si ay isla weyne ku jirto ayuu ugu jawaabay, aniga waxaan ahay nin maalqabeen ah, sharaf, maamuus iyo qoys jacayl xad-dhaaf ah u qaba haysta. Salaada maxaan uga baahanahay iyo xiriirinta hooyaday oo iyadaba duq iska ah. Sheekhii ayaa ugu jawaabay, warmooge, salaada adduun iyo aakhiro waa badbaado. Midda kale hantida iyo qadarinta ay dadka ku hayaan intaba mar uun way dhammaanayaan, ee cibaadada alle ayaa liibaan lagu gaaraa, taasoo ah ujeedada alle subxaana watacaala uu u abuuray jinka iyo insiga. Dhammaan dadkaas oo dhan kuma jecla ee waxay doonayaan inay hantidaada ku manaafacaadaan. Haddaad u baahatana waxba kuma tarayaan. Haddaad doonaysa xaqiiqada hadalkayga inaad ogaato, qasriga nagey oo qoyskaaga ayaan u sheegayaa in adiga aad xanuunsan tahay oo aad u baahan tahay qof qoyska ah kelihiisa mid ka mid ah inuu ku siiyo si noloshaada ay u badbaado, kadibna aan aragno ciddii ku badbaadisa adiga. Qasrigii ayay tageen, dhammaan walaalihiisa iyo reerkiisaba way diideen in ay hal kili siiyaan si uu u sii noolaado. Ninkii barwaaqada ay ku jiraan usoo tiriya tacabeelay. Sheekhii ayaa yidhi, maskiinkan xooggiisa iyo maankiisa waxa uu soo beelay, maanta ayaad ku raaxaysanaysaan, waadna badbaadi weyseen markuu idiin baahday ee hooyadiis baxa u soo qaada inay iyada badbaadiso ayaa laga yaabaa. Ninkii maalqabeenka ahaa ayaa hoos isu yiri, haddii ay badbaadi waayeen dadkan maalin iyo habeen u taagnaa horumarintooda, hooyadii oo aan cidlo uga tagay mar hore ma ay badbaadinaysa? Taasi macquul maaha, ayuu niidii iska yiri. Hooyadii ayaa la keenay. Markii arrintii loo sheegay ayay hooyadii tiri, aniga indhahayga, kilidayda iyo dhammaan jirkayga ayaan diyaar ula ahay wiilkayga aan muddada 9 bilood ah uurka kusoo siday si uu igugu badbaado, waayo noloshiisa waa nolosheeda. Mar allaale markii dhegihiisa ereyadaasi ay ku dhaceen, aad buu u ilmeeyey ninkii maalqabeenka ahaa. Hooyadiis ayuu lugaha qabsaday, wuxuuna ka codsaday inay cafiso. Wuxuuna yidhi, sheekhii, waa runtaa, jannada adduunyada waa hooyo. daacadda iyo cibaadada alle mooye wax kale adduun iyo aakhiro ima anfacayaan. Hadda ayaan alle u toobad keenay, wixii alle ii dhaweynaya dib dambe ugama fogaanayo. Walaal, xiriirka alle iyo baarinimada waalid waxa ay kuu horseedayaan in noloshaada adduun iyo midaada aakhiraba barwaaqowdo. waxba kuma tarayaan in lagugu ciseeyo waxa aad haysato. fadlan walaal, ha iloobin inaad like saarto fiidiyowga una sheergarayso asxaabtaada. mahadsanid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. nin maalqabeen ah ayaa guursaday gabar aad u qurux badan oo dad sharaf iyo maamuus la ka dhalatay. in ka badan 5 sano ayay nolol wanaag, farxad iyo raynrayn ku dheehan tahay soo wada qaateen. maalmaha ka mid ah ayay xaaskii ninkeedii ka dalbatay inuu u furo barta bulshada ee aad kugu xiran tahay ee loo yaqaano Facebooka. isagoo dhoola cadaynaya ayuu ku yiri, haye gacaliso. markaa kadib waxay waqtigeeda inta badan ku lumisay isticmaalidiisa. waxa ay ka gaabisay cibaadada alle oo waxa ay bilowday inay salaada ka tagto oo ay ilaawdo xiliyadeeda iyo waliba horumarinta qoyskeeda. iyadoo xilli dambe ah oo reerkii cuntadii ka daahday bay jikadii aaday gabadhii. ninkii mobilkii xaaskiisa ayuu eegay. arrin yaab leh ayuu Facebookeeda ku arkay oo aad ayuu uga naxay. iyadoo xaas ah bay haddana rag kale la hasaawaysaa. in aad u caqli badan buu ahaa, kuma degdegin inuu khayliyo isagoo arkaya waxa meesha ka socda. markii ay kasoo laabatay howlihii jikada iyo cunto karinta qoyska ayuu si degan u yiri, maad alle ka cabsatid, marar badan buu alle ceebahaaga asture. waa maxay nimanka kale aad la hasaawayso? soo xaas aan qabo ma tihid? maxaa aniga sharafteeda meel uga dhacaysaa haddii aadan i jeclayn? maad ii sheegtid haddii aadan rabin la noolaashahayga? maaha inaad rag kale la haasaawdo adigoo xaas ah, anigoo wax walba wanaag ah kuu samaynaya. haddaba intaan ka badan ma rabo inaad aniga dhib ii aragto. waan ku furay si aadan dembi ugu dhicin adigoo xaas ah. walaalayaal, social mediahu waa dhibaatada ugu badan ee haysata bulshadeena, waana sababta qoys wanaag ku bilowday keenta inuu dumo. fadlan walaal, ha iloobin inaad like saarto muuqaalka, sidoo kale share dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan. mahadsanid. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. arday u dhalatay dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa dalxiis gaaban u tagay tuulo xigta bariga Sacuudiga. wiil ka mid ah ardayda oo aroortii jimicsi u aadi jiray duleedka tuulada si uu u daawado quruxda beeraha. weliba isagu wuxuu aad u daneynayay inuu barto dhaqanka dadka tuulada si uu daraasad gaar ah u wato ee macluumaad buuxda ugu noqoto.
in badan waxa uu isha la raacayay haweeneyda ah oo ari dhaqato ah subax walba meesha ay joogtaa aad buu ula yaabay. meeshaas ugama uusan harin arrinta ee dadka tuulada ayuu weydiiyey arrinta haweeneydan da'da ah aawo ehelkeedii iyo carruurteedii. waxay ugu jawaabeen ehel iyo carruur intaba ma laha oo dunida cidna uma joogto keligeed bay nooshahay. isagoo aad u qiiraysan buu subaxii dambe u yimid islaantii waayeesha ahayd uuna la sheekaystay. ugu dambeyn wuxuu weydiiyey su'aal ah maxaad jeclaan lahayd noloshaada inaad hesho. waxay ugu jawaabtay inaan tago beydka sharfan ee Alle iyo in aan arko Maka iyo Madiina oo aan mar uun soo xajiyo, balse arrintaas ma awoodo maxaa yeelay ma haysto qof muxram ii ah oo ila safra. wiilkii aad buu uga fikiray arrinta haysata islaantan waayeesha wuxuu soo xasuustay dardaarankii aabihiis oo ahaa ku caawi dadka wixii aad dhaanto hana sugin inay ku abaalgudaan. wanaagga aad samayso adiga ayuu kugu soo noqonayaa. wuxuu habeenkii oo dhan fikira. ugu dambeyn waxaa ku dhalatay fikir ah inuu guursado haweeneyda waayeesha ah oo uu muxram u noqdo si ay u soo xajiso oo ay u hesho waxa ay nolosheeda jeclay oo ah mar uun inay tagto dhulkii barakeysnaa ee xaramka. markay soo xajisana uu iska furo. waagii markuu bariyay ayuu sheekh soo watay oo arrinkii islaantii u sharaxay. ugu dambeyn way ku raacday. markay soo dhammaysatay waxay haaminaysay wiilkiibaa islaanta da'da ahayd ku yiri dantaadii waad gaartay marka waa inaan ku furaa. waxay ku tiri maya ha samayn sidaas, iska bax oo meeshaad doonto aad keliya ii daa inaan marwo ahaado oo xaas ah intaas uun ii samey. maanta qof waayeela baan ahay oo dunida cid kuma lihi adiga uun aan kugu yeesho. wiilkii wuu ku raacay wuuna ka tegay. muddo kadib maalin maalmaha ka mid ah isagoo magaaladii uu ku noolaa jooga oo asxaabtiisii la fadhiya bay ka wareysteen arrinta iyo xaaladda islaantii duqda ahayd ee uu guursaday. waxa uu ugu jawaabay kama warhayo. waxay kula taliyeen inuu booqdo. markuu tagay tuuladii islaanta ay ku nooleed buu dadkii weydiiyey waxayna u sheegeen inay geeriyootay. waxayna ku dhaheen keliya gurigeeda ayaa xiran, adiga ayaa xaq u leh inaad gasho. gal gurigeeda oo wixii gaar idin ah soo ogow. hadda xaaskaaga way geeriyootay, qof aan adiga ahayn dunida uma joogo oo adiga keliya uunbaa dhaxlaya hantideeda. wuxuu helay wiilkii sabar loogo dhul khaali ah oo haweeneyda lahayd oo ay asaga dhaxal ahaan uga tagtay. dhulkii buu iibiyey waxuuna ku gaday lacag dhan $3 milyan oo dollar. isagoo aad u faraxsan buu niyadda iska yiri ku caawi dadka wixii aad dhaanto hana sugin inay ku abaalgudaan maxaa yeelay wixii wanaag ah oo aad samayso adiga bay kugu soo noqonayaan. ha aabe run baad sheegtay. dardaarankaad ii dardaarantay ilmahayga waan u dardaarmi doonaa. walaal adiguna in aad qof caawiso ha ku xirin inaad faa'iido ka hesho. wixii aad awooddo ku caawi cid walba oo u baahan caawinaadaada. fadlan walaal shardhe oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan. mahadsanid.